suldaan maxamed muuse cun ayaa ka mid ah salaadiinta gobolka togdheer oo maanta waraysi ku siinayay gudaha magaalada burco. mid ka mid ah telefishinada madaxa bannaan ee ka howlgala Soomaaliland ayaa si kulul uga jawaabay hadallo maalintii shalay ka soo yeedhay boqor Buurmadow kaas oo ku difaacayay Cabdirashiid Riye Raac oo ka mid ah xubnaha komishinka doorashooyinka Soomaaliland kuwaas oo ay dhawaan ansixiyeen xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland isla markaasina muran xooggan ka dhexdhaliyay axsaabta siyaasadda Soomaaliland kuwaas oo aan ku qanacsanayn xubinnimadii xalay baan dhagaxan daawaday TV dabeetana waxaan arkay ninka la yiraahdo Buurmadow oo fadhiya. Buurmadow hadalladiisii aad iyo aad baan u dhageystay. waxaan ku aqaanay waxaan hayna kama soo bixin inta waan ku aqaanay uu ka hadlayay iyo in kale oo qarsoonba taa la ajligeed bay u kalifaysaa saaka inaan kelimada kooban halkan ka idhaahdo. Allahumma salli ala Muhammad. waxaan leeyahay Buurmadow hadallo badan oo mukhtaliif ah oo isku jira oo nooc loo qaadaan la garanay mu ku hadlay xalay. waxa kamid ahaa dimuqraadiyadda Soomaaliland uu ka hadlayay. wax la yiraahdo beel habar jecel yahay uu ka hadlayay. wuxuu kale ka hadlayay doorashooyinkan iyo waxyaabaha asxaabta uu ka hadlayay. shir iyo gobol ay dhigeen oo uu yiri waa ka noqonayna uu ka hadlayay. arrimo badan oo caynkaas oo iskhilaafsan ayuu ka hadlay. haddaan qodob isu dul taago horta marka hore waxaan idin sheegayaa waxa la waraabuhu laf gurigiisa taalan oo maroona mid guriga kala taalan oo maroona baalka waraaba leeyahay. waxa weeyaan waxaan leeyahay ninka la yiraahdo Buurmadow waxa weeyaan gurigiisana uma roona guryaha Soomaaliland kale uma roona. waa ninka intuu gurigiisii dabka geliyay dumarkiisii iyo caruurtiisii iyo maatadiisii dagaalka geliyay ee ku laayay isaga iyo dariskiisii kuwii la dariska ahaaba 4 sanadood dagaalka ku waday ee qasaarahooda iyo ceebtooda meel walba ka dhacdeen. ninka gurigiisii uu talin waayay in adeerkii uu talin waayay hooyadii uu talin waayay walaalkii uu talin waayay intaba laayay ee dagaal ku laayay iyo sokeeye oo waliba ay kii dad isugu dhawaayeen dariska ahaayeen ku laayay ee dhigiisii qoyan yahay ee Soomaaliland maskax iyo aqliba suuq geysay ee la fardaamin kara waayay ee boqolka goor dhaartay. cid kale oo Soomaaliland joogto horta naf haya ma jirto. ali guriga bari waxa kamid ah hadalladiisa hadallaan in ka sii xasuusto bari uu la hadlay Salmaan Gaal ayuu waa wasad xaaraana oo Soomaaliland ku dhex jirta. waxaan leeyahay ali maanta wuxuu gafay horta Buurmadow baan ku darin Buurmadow baan ku darin ka tagayay anaa ku darayee waa wasad xaaraana waa Buurmadow oo ku taala Soomaaliland waa weeyaan waa waxa weeyaan kaar iyo imtixaan loo soo diray Soomaaliland oo aan dhaqan xeerinayn oo sharaf xeerinayn oo aan odaynimo xeerin oo waxba xeerin weey. horena waan u sheego anigu dhowr jeer baan sheego waxaan waa ninkaasu ilaahay baa anigu bir hore anigu habar jecel u sheeganay habar jecel horta ma aqaano bir hore war ninkan waa la marcas saa ogtiinba. inta waxaan ka tagayaa waxaan horta u baydhayaa habar jecel ka hadlay. waxaan leeyahay markaan habar jecel iyo Buurmadow kala qaado horta anagu habar jecelo niman daris baanu nahay Soomaaliland laba reer Soomaaliland waa wadanay oo Soomaaliland ku wada dhaqan bilaadankuna waa ari jirimo kala abaal weydo oo soo wada baahay soo waxaad garatay ma haddii ay habar jecel ay noqoto anigu waxaan leeyahay habar jecel anagu waxba oran mayno Buurmadowna waxba oran mayno iyo Buurmadow toona soona qaadi mayno. habar jecelo sida dadku isugu baahanay iyana waa noo baahan yahay anagoo baahanay cod haddii uu leeyahay cod habar jeclaan haystaa leeyahayna habar jecelo anagu waxa weeyaan abaal badan baan ku leenahay. waxa weeyaan habar jecel marka laga soo waxaan ku leenahay mid gacanta looga saga hiliyaan ku leenahay hiil baan ku leenahay oo cod arsinaan ku leenahay oo taageero badan baan ku leenahay. saaka waan sheegayaa waxba qarin maayo anagu boohoodle anagu waxaan ku wariyo anagu hayaan ugu helin oo garan ugu laan u helin oo waxaan u helinay meesha lagu yiraahdo qoorlugud baan ugu helin oo waxaan ugu helinay haddii Ilaahay ka dhigayo cayna baan ugu helinay oo wadaamo goobaan ugu helinay oo kirir baan ugu helinay oo gaatamaan ugu helinay oo waxaan ugu helinay beer oo waxaan ugu helinay faayo oo waxaan ugu helinay naqdamiijo oo waxaan ugu helinay gumur libaax oo waxaan ugu helinay jaamac liibaan oo waxaan ugu helinay meesha lagu yiraahdo war cifraan oo waxaan ugu helinay meel kasta ugu helinay. ومحمود أحمد هذا محمود ماشد ورك تلفزيون كدلك برعو.